nolosha ma ahan mid dhammaystiran, balse waan ku faraxsanahay inta aan haysto aniga. kun jeer ka fikir inta aadan qof qalbigaaga u furin, sababtoo ah ma ogid waxa uu kaa damacsan yahay. qofka ugu daran ee si dhab ah kuu dhaawici karo waa qofka aad dadka ugu jeceshahay. wax ka xanuun badan ma jiro qof aad u xiistay oo onlaynkiisa aad arkayso haddana aadan awoodin inaad la hadasho. qofka ugu horreeya ee ku bara macnaha jacaylka uu leeyahay iyo macaankiisa ayaa noqon doona qofka ugu horreeya ee ku baro macnaha xanuunka uu jacaylku leeyahay. waxaad ahayd mustaqbalkayga, balse maanta waxaad noqotay ilowshahayga. waxaan jeclaa inaan farxad kula qaato, balse maanta aragtidaada baa noqotay xanuunkayga. marka aan kuu xiiso ma fiiriyo sawirkaaga ama maasajkaaga ee waxaan isku qabtaa indhahayga si aan kaaga dhex arko adiga. ma jiro ruux aan soo marin dhibaato ama xanuun, balse xanuunka nolosha ugu adag ayaa ah in uu kaa fogaado qof aad jeceshahay ama uu ku dhaawaco. markaan isku kaa haleeyey miyaad dhibkan oo dhan ii horseetay adiga. noloshayda markii aad ku soo biirtay waxaan hamiyey wax walba oo wanaagsan, sida farxadda, rajada, kalsoonida iyo jacaylka. nolosha waa safar aan dhammaad lahayn. qof walboo ku soo maro wuu kaa tegi doonaa. waan arkaa sidaad ila dhaqantay, balse waxaan eegayay nacasnimadayda aniga. in aad mar walba ilinta iska tirtid waxaa ka habboon inaad nolosha ka tirtid qofka xilli walba kaa ilmaysiinayo.